aan aad ugu xunnahay oo ka tacsiinayna dadkii ku geeriyooday fatahaadii ka dhacday magaalada Beledweyne sida guddoomiyaha u sheegana qaarna meedkoodii la helay qaarna weli meedkoodii aan lahayn runtii magaalada Beledweyne masiiba ka dhacday maanta waan soo wada dul marnay magaalada boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 90 biyaha ayaa ka koreeya magaalada runtii magaalooyinka ugu waaweyn koonfurta Soomaaliya oo dhammaanteed laga soo wada baxay oo qof ku nool oo san jirin dibka intaas la eg waa dareemi kartiin waxaan leenahay wixii Ilaahay keeno alxamdulillah laakiin meeshaas dib xoog laha ka dhacay hadda annaga waxa noo yaal hawl aad u weyn waa sanadkii labaad oo ay soo noqotay fatahaaddan intaan la eg fatahaadda soo noqotay xajmiga ay la eg tahay waa fatahaadihii lagu qiyaasi jiray 50 sanaba mar aniga sida ogsoontiin wasaaradda beeraha ahaa jiray aadan ula socdaa fatahaadaha iyo arrimaheeda fatahaadahan oo kaleeto 50 sano mar ayaa lagu qiyaasaa inay 2 sano isku xigta ay soo noqoto marka caadi maaha sidaas daraadeed arrintaas talay u baahan tahay fagaarooyin badan waa ka jeedinay ay ugu dambeysay kulankii SPF ka hadda xamar ka dhacay in maamulka webiga Soomaaliya marka uu soo galo iyo inta Itoobiya naga xigtaba ha ahaatee in laga wada tashado maamulka webiga ayaa saldhig u ah in wax laga qabto fatahaadda webiga Shabeelle arrintaas runtii waa arrinta saldhigga u ah in laga gaaro xal waara fatahaadaha soo noqnoqday hawsha hadda noo taal waa 3 waji wajiga hadda aan ku jirno oo wajiga ugu xanuun badana waa gurmadka waa dadka go'doonka waa dadka muxuu ahaa la laayahay waa dadka muxuu ahaa meel ay ku sugan yihiin aan la ogeyn la soo baadi goobo la soo bixiyo la soo saaro maanta markaan magaalada soo dul marnay waa aragnay muxuu ahaa xaafado go'doona waa aragnay guryo go'doona runtii welwel fara badan ayaa wuxuu nooga jiraa in magaalada dad fara badan ay go'doon ku yihiin arrintaas marka waxay u baahan tahay gurmad weyn xagga doomanka iyo xagga diyaaradaha runtii waxaan aad mahad ugu celinaynaa ciidamada walaalaheena AMISOM iyo United Nationska oo ilaa iyo mataqaanaa usbuucan oo dhan gurmadka nugula jiray wax alla waxay awood leeyihiin ha ahaadaan diyaarado iyo ha ahaadaan baabuur iyo ha ahaadaan ciidan iyo ha ahaadaan dad si gaar ah u tababaran oo dabaasha gurmadka nugula jiray aadan uga mahad celinayaa wajigaas marka hadda aan ku jirnaa waa waji xanuun badan باذن الله تعالى ووحي إلهي قدرنا ودع دونان وندذالينا إن شاء الله وجيغا كحيغا وجيغا سمفلكا oo dadka dhibaataysan baahiyahooda bini'aadanimo biyaha ugu horeeya faya dhowrka cuntada hooyga daawada wajigaas runtii oo aan mataqaana sidii gudoomiyuhu u sheegay aan wali aad u bilaaban waxaan u baaqayaa dhammaan deeq bixiyaasha dawladda federaalka ganacsatada dadka qurba joogta gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Hirshabeelle inay dadkii muxuu ahay dhibaatada ay gaartay fatahaadu way u daran tahay Beledweyne laakiin webiga Shabeelle oo dhan buula burde fatahaadu waa ka bilaabatay Jowhar Mahadaay Balcad kulli maanta waa soo wada marnay fatahaadu waa soo wada aragnay wajiga saddexaad marka waa wajiga dib u kabashada iyo in dadkii guryahoodii dib loogu celiyo runtii sanadkii hore waxa la sameeyay gurmad aad u weyn oo la iska kaashaday oo magaaladu ay caadi 3 bilood gudaheed ay ugu soo noqotay inkastoo fatahaadu ay fatahaadii sanadkii hore ay ka xoog badan tahay waxaan rajaynaynaa gurmadkii sanadkii hore oo kale haddaan sameeyno in muddo 3 bilood inkastoo qofkii hadda maanta magaalada soo maray uusan aamini karin inaan magaalada caadigeedii inaan ku soo celinno kadibna annagoo kaashanayna dawladda dhexe iyo deeq bixiyaasha iyo wada hadal aan la galno walaalaheen Itoobiya in xal waara laga gaaro fatahaadda soo noqnoqotay shacabka reer Hirshabeelle shacabka Soomaaliyeed waa dad muslina waa dad qadarta aaminsan waa dad wixii Ilaahay keenay ku kalsoon waa dad iscaawiya
waxaan rajaynaynaa in ilaahay dhibkaa naga bixiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.